السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبي هالكسو هذا مركلة iyo FBL Somali iyo Sun Sports iyo barnaamijkeena Fantasy Premier League waxaana soo gudbiyay usbuuc ciyaareedka 34 oo ku soo dhamaaday in ciyaarahanadii ugu dhibcaha badnaa ay keenaan 140 dhibcood. ciyaareenka ugu dhibca badnaana wuxuu ahaa Gareth Bale oo aan uga soo hadalnay barnaamijkeenii hore oo aan ku sheegnay in uu yahay kabtan farqi noqon kara, taasoo maamulayaashana aad uga farxiyay markii uu saddexley dhaliyay dhibco gaaraya 20 dhibcoodna 21 dhibcoodna uu keenay. toddobaadkan waxaan ka hadli doonaa usbuuc ciyaareedka horteena ah ee usbuuc ciyaareedka 35 oo ah triple game week ama in koox ay saddex ciyaarto. balse intaan u gudagelin waxaan xasuusinayaa inaad nagu soo dirtaan YouTube-keena FBL Somali iyo Facebook-ga, Twitter-ka iyo Instagram-ka oo aan si joogta ugu daawacno wararka la xiriira Fantasy Premier League. ku soo dhawaada mar kale iyo FBL Somali. usbuuc ciyaareedkii la soo dhaafay Gareth Bale saddex ayuu dhaliyay isagoo qaatay dhibcihii dheeraadka ahaa ee saddexda ahaa waxa uuna keenay 21 dhibcood. haddii aan fiirino marka 11 ciyaartoy ee dhibcaha ugu badnaa keenay waxa ugu horeeya Johnston oo ciyaara kooxda West Brom, waa goolhayaha kooxda West Brom waxa uuna keenay 7 dhibcood. Aurier ayaa ku xigo. Serge Aurier waxa uu caawin sameeyay, laba caawin ayuu sameeyay ciyaartii ay kooxda Tottenham ee 4-0 kaga badisay kooxda Sheffield United. Benjamin Mendy oo daafacyada Manchester City ka mid ah ayaa caawin sameeyay waxa uuna keenay 12 dhibcood. Johnny Evans oo ciyaara kooxda Leicester City ayaa keenay 10 dhibcood. dhinaca qadka dhexe waxa ugu horeeya ninka toddobaadkii la soo dhaafay dhibcaha ugu badnaa keenay oo kabtano badanna ka farxiyay, maamulayaal badan ka farxiyay, waa Gareth Bale oo 21 dhibcood keenay. Kai Havertz oo ciyaara kooxda Chelsea ayaa laba gool u dhaliyay ciyaartii Chelsea ay ka badisay Fulham waxa uuna keenay 16 dhibcood. Son ayaa ku xiga. Heung-min Son isna wuxuu ka mid ahaa raggii aan ka soo hadlay toddobaadkii hore ee aan maamulayaasha u tilmaamay inuu noqon karo kabtan farqi ah oo cajiib ah. waxa uuna keenay 12 dhibcood isagoo dhaliyay hal gool kalena caawin ka ahaa. ciyaarahan Pierre-Emerick Aubameyang oo dhaawac ka soo laabtay xanuun kadib malaria ahna uu soo wajahday ayaa soo laabtay ciyaartii Arsenal 2-0 kaga badisay kooxda Newcastle waxa uuna keenay 12 dhibcood isagoo dhaliyay gool hal kalena caawin ka sameeyay. ciyaarahan Mohamed Elneny oo ciyaara kooxda Arsenal ayaa isna 12 dhibcood keenay. Elneny waxa uu dhaliyay goolkiisii ugu horeeyay taariikhda inta uu ciyaaray horyaalka Premier League isagoo keenay 12 dhibcood. dhinaca weerarkana Antonio oo ciyaara kooxda West Ham ayaa keenay 13 dhibcood, halka Welbeck oo ciyaara kooxda Brighton oo 2-0 kaga badisay kooxda Leeds uu keenay 12 dhibcood. dhibcahaas oo gaaraya 140 dhibcood ayaa ay keeneen ciyaarahanadaasi oo ahaa toddobaad la baajiyay kulan ka mid ah kulamadii qorshaysnaa. waxaa la baajiyay kulankii Manchester United iyo Liverpool oo sababo amni loo baajiyay markii ay taageero careysan oo ka careysan arrimaha la xiriira maamulka sare ee kooxdaasi ragga kooxda iskale ay intay garoonka soo galeen kadibna ay mudaharaad halkaas ka sameeyeen, taasoo keentay in maamulka Premier League ay go'aan ka soo saaraan kulankiina ay baajiyaan. waxaa xusid mudan marka in kulankaasi la baajiyay lagu daray jadwalka kulamada usbuuc ciyaareedka 35 iyagoo markaa kooxda Manchester United noqonaysa kooxdii labaad oo 3 kulan ciyaarta hal usbuuc ciyaareed taariikhda FBL-ka. Manchester United ayaa markaa wajihi doonta kooxaha Aston Villa, Leicester City iyo Liverpool. saddexdaas kulan ayay ciyaari doontaa usbuuc ciyaareedkan 35. dhinaca kale marka ciyaareedkan 35 oo kooxo badan ay leeyihiin kulamo badan sababaha keenay waxaa ka mid ahaa kooxaha Southampton iyo Crystal Palace oo hore u balansanaa oo kulankooda la baajiyay, iyo kooxaha Everton iyo Aston Villa oo ayagana kulan lahaa oo ayagana la baajiyay, iyo kulanka FA Cup finalka Leicester iyo Chelsea oo keenay in kulamadii ay Leicester la lahayd Manchester United iyo kulankii Chelsea ay la lahayd Arsenal in loo dhigo oo usbuuc ciyaareedka 36 ahaa in kulanka lagu soo daro jadwalka usbuuc ciyaareedka 35. sidaasna ay kooxaha Leicester iyo Chelsea iyo Southampton, Liverpool, Aston Villa, Arsenal iyo Crystal Palace iyo Everton ay ku yeeshaan kulamo min laba ah, halka kooxda Manchester United aan sida hore kugu sheegay ay leedahay
saddex kulan. haddii aan marka fiirino kulamada isbuuc ciyaareedka soddonshanaad iyo maalmaha la kala ciyaari doono, kulanka ugu soo horeeya waa Jimcaha oo 7 bisha ah, waxaana ugu soo horeeya kooxda Leicester oo ciyaari doonta kulankeeda ugu horeeya iyadoo martigelinaysa kooxda Newcastle. Sabtida ayaa ku xiga kulankaasi, kulanka ugu horeeyana waa Leeds iyo Tottenham, Sheffield United oo iyadana martigelinaysa kooxda Crystal Palace, Manchester City oo martigelinaysa kooxda Chelsea, Liverpool oo martigelinaysa kooxda Southampton. maalinta Axadda ah oo ah 9 bisha May waxaa wada ciyaari doona kooxaha Wolves iyo Brighton, Aston Villa iyo Manchester United, West Ham iyo Everton, iyo kooxda Arsenal oo martigelinaysa kooxda West Brom. maalinta Isniinta ah oo ah 10 bisha May waxaa ciyaari doona kooxaha Fulham iyo Burnley, Manchester United iyo Leicester oo ah kulanka ugu soo horeeya isbuuc ciyaareedka, kulanka labaad ee Manchester United ay leedahay oo isna dhici doona maalinta Talaadada ah oo ah 11 bisha May. Arbacadana waxaa dhici doona kulanka Southampton iyo Crystal Palace oo ahaa kulan hore loo soo baajiyay, iyo Chelsea oo martigelinaysa kooxda Arsenal. kulanka ugu dambeeya oo ah maalinta ugu dambeysa oo ah Khamiista oo 13 bisha May waxaa wada ciyaari doona kooxaha Aston Villa iyo Everton, iyo kulankii isbuuc ciyaareedkii lasoo dhaafay la baajiyay kooxaha Manchester United iyo Liverpool ay ku balansanayeen. taas wuxuu noqonayaa marka isbuuc ciyaareedkan mid ka mid ah isbuuc ciyaareedka ugu dheer oo intaasoo kooxood ay leeyihiin, kooxaha Arsenal oo la leh West Brom iyo Chelsea, Aston Villa oo la leh Manchester United, Chelsea, Manchester United, Everton, Chelsea oo ayadana wajahaysa Manchester City, Arsenal, Crystal Palace oo wajahaysa Chelsea iyo Southampton, Everton oo wajahaysa West Ham United iyo Aston Villa, Leicester City oo wajahaysa Newcastle iyo Man United, Liverpool oo ayadana la leh kulamo Southampton iyo Manchester United, Southampton oo ayadana la leh Liverpool iyo Crystal Palace, iyo Manchester United oo 3 kulan ciyaari doonta waa Aston Villa, Leicester iyo Liverpool. kulamadaas ayaa dhici doona. kooxahaas haddii aad ciyaartoy hore uga haysatay waxay noqon karaan ciyaartoy aad dhibco badan ka hesho. haddii aad tusaale ahaan Arsenal oo kale, Aubameyang oo soo laabtay iyo Lacazette waa kuwa ugu Lacazette oo dhaawacsan ka soo laabtay, waxay noqon karaan dhibco ay ka keeni karaan, gaar ahaan kooxda Arsenal oo wajahaysa West Brom dhibco ay ka keeni karaan meeshaas. Aston Villa ciyaaraankeeda Watkins oo shantii kulan hadda ugu dambeysay dhibco ilaa 10 ka badan laba mar keenay ayaa wuxuu ka hor imaanaya kooxaha Manchester United iyo Everton. Watkins wuxuu noqon karaa farqi dhibco keeno, inkastoo dhinaca Aston Villa xoogaa daafacyada ay ku yartahay inay shabaq ilaashadaan waayadan dambe oo culays tababar Mark Dean soo wajahay waayadan dambe ay keentay inay shabaq ilaashan waayaan. ciyaarahan Martinez oo ah goolaha kooxda Aston Villa oo xilli ciyaareedka qaybtiisa hore kamid ahaa ciyaartoyda ugu dhibcaha badan dhinaca goolahayaasha ayaa hadda shabaqiisa ilaashan la, taasna waa caqabad. balse haddii ay haysato meel walba la isku halayn karaa dhinacaas badbaadinta uu sameynayo, shabaqa uu ka ilaalinayo, meeshaasna dhibco uu ka keeni karaa. Chelsea ciyaaraanadeeda Havertz, Pulisic iyo Mount iyo weliba dhinaca daafacyada oo aad loogu amaanayo iyagoo iska xaadiray finaalka Champions League kulan ay Real Madrid 2-1 kaga badiyeen. waxaa aad loo amaanay qaab ciyaareedkeeda dhinaca daafaca, isku xirnaantooda iyo weerarkooda oo fudud aadka sida quruxda badan loo dhisayo oo uu saldhig u yahay ninka lagu magacaabo Kante oo isku xiraha ah. Chelsea marka dhinacyada daafacyada aan hore ugu soo hadalnay waa Rudiger, waa Alonso, Azpilicueta iyo Christensen oo hadda ku soo laabanayo line-upka kooxda, waxay noqon karaan farqi oo dhibco ku keena. dhinaca weerarkana Havertz oo laga ciyaarsiiyo number 9 dadban iyo Pulisic oo hadda la soo qabsanayo oo asagoo kamid ahaa in Thomas Tuchel kamid muusan ahayn ciyaaraanada oo ku bilaabay inta badan sida Mount oo kale. Mount lagu bilaabay kulamada ugu horreysay laakiin wuu la soo qabsaday. sidoo kale Timo Werner oo asna aad moodo dhinaca nasiibka inuu ka helinayo, laakiin haddana saameyntiisa iyo caawintiisa iyo weerarkiisa mar walba leh muhiimad gaar ah. Everton haddii aad ciyaaraanadaas Everton waxay kamid tahay kooxaha labada kulan ciyaari doona. ciyaaryahankeeda Dominic Calvert-Lewin iyo Sigurdsson ayaa kamid ah ragga ugu cadcad ee dhibco keeni kara toddobaadka soo socda.
dhinaca daafacana Digne oo kamid ah daafacyada dhinaca weerarka ugu badan ee keena caawinta amaba goolashka ishag sida hadda Dominic Calvert-Lewin oo aad madax ugu fiican waa ninka ugu badan weerarka uu kaga tashto oo korosada ugu badan uu kaga tashto marka Digne oo kale Dominic Calvert-Lewin iyo Sigurdsson oo dhinaca markii penalty la helo oo kale laadka xorta oo kale in jaanisada ugu badan uu ka helo Leicester City oo ayagana qaab ciyaarad wanaagsan ku jiray oo toddobaadyadana maamulayaasha aad ugu tashanayeen ayaa waxay leeyihiin laba kulan waa Newcastle oo ku dagaalamaysa inay iska ilaaliso horyaalka heerka hoose iyo Manchester United oo ay ayagana wajihi doonaan oo kaalmaha labaad iyo saddexaad ay u kala tartamayaan ciyaaradeeda Vardy Maddison Henacho asoo wuxuu ahaa nin toddobaadyada hadda la soo dhaafay ninka ugu cadcada oo dhibcaha u badan keenaya dhinaca weerarka markaan dhahno dhinaca daafaca oo kale kooxda Leicester City waxay ka mid tahay kuwa aadka loogu tashanayo ciyaaraan Castagne ayaa ka mid ah ciyaaraan Evans ayaa ka mid ah oo toddobaadka la soo dhaafay gool ka dhaliyay kooxda Southampton si guud marka kooxda Leicester City ciyaaraanadaasi waxay ka mid yihiin kuwa dhibco muhiim ah keeni kara Liverpool oo ayagana ka hor imaan doona kooxaha Southampton iyo Manchester United Liverpool kulankii Manchester United ilaa toddobaadka waa la baajiyay sidaa darteed kulankan jadwalkan hadda loogu soo daray ciyaaraanadeeda Salah iyo Alexander-Arnold oo saameynta tagista goosha iyo fursad abuurista asagana saameyn ku lahaa toddobaadyadii la soo dhaafay ayaa haddana mar kale waxaa la isdhihi karaa Southamptonna dhibco ka keeni karaan Manchester United-na dhibco kale ay ka keeni karaan marka ciyaaraanadaas Mane ayaa ka mid ah oo asna laba kulan oo ugu horeysay gool soo dhaliyay asna wuxuu noqon karaa farqi cajiib ah oo maadaama dadka haysta ay yaryihiin sidii hore ay ka yaryihiin dhibco ay ka keeni karaan xagga Southamptonna Liverpool markay laga soo tago kooxda Crystal Palace ay wajihi doontaa Ward Prowse oo cusub ciyaareedkii 26aad oo sidaan oo kale kulamo min laba koox ay ciyaarayeen ahaa ninka ugu dhibcaha badnaa oo asagoo keenay 18 dhibcood wuxuu ka mid yahay ciyaaraanada farqiga ah ee dhibcana keeni kara kooxda Manchester United oo saddex kulan ciyaari doonta ciyaaraanadeeda Fernandes oo toddobaadkii hore aan ka hadlay in hoos u dhac ka muuqdo laakiin haddii kooxda Manchester United ay leedahay saddex kulan laga yaabo in awood badan uu ka helo oo meeshaas dhibco badan ka soo xareeyo ayaa ka mid ah Rashford oo isna ah farqi cajiib ah wuxuu ka mid yahay dadka kulamada lagu ciyaaray Old Trafford markasta saameynta ku yeesha dhibcana ka keena Rashford wuxuu ka mid yahay marka ragga ugu cadcad haysashadiisana way yar tahay oo 10% waaye waana weerar oo aad u fiican oo la isku haleyn karo ciyaaraanka Mason Greenwood oo ka mid ahaa ciyaaraanadii toddobaadkii la soo dhaafay maamulayaasha aadka ugu farxinayay oo FPL-kana si fiican xitaa hadda waxaa sare u kacay qiimihiisa oo 7.2 ayuu gaaray marka Mason Greenwood asna wuxuu noqon karaa farqi cajiib ah oo dhibco ku keena si guud toddobaadkan toddobaadkan kan ku xiga oo ah isbuuc ciyaareedka 16aad kooxo ay ka mid yihiin kooxaha Aston Villa oo Crystal Palace ka hor imaanaysa Everton oo Sheffield United ka hor imaanaysa Southampton oo Fulham la ciyaari doonto saddexdaas kulan oo dhici doona isbuuc ciyaareedka 16aad sababtoo ah isbuuc ciyaareedkaasi kulamadiisa qayb ka mid ah waa kuwa hadda hore loo soo durjiyay marka eedan ku xisaabtan haddii aad ciyaartoy aad ka haysatay saddexdaas kulan mid ka mid ah in aad ku degdegin iska iibsid taasna ka fikir waa haddii aad rabtid inaad sii wadatid saameynta aad ku leedahay FPL-ka haddii aan fiirino marka kabtanada ugu fiican toddobaadkan ugu fiican waxaan dhihi karnaa kooxda Manchester United ay ka imaan karaan maadaama saddex kulan ay ciyaari doonto oo ay ciyaareenka ugu dhibcaha badan FPL-ka Fernandes uu ka mid yahay waa kabtanka ugu cadcad oo toddobaadkan kabtan la saaran karo sababtoo ah meeshaasi waxa uu ka keeni karaa dhibco muhiim ah kooxaha Aston Villa Leicester iyo Liverpool ay ku hor imaanayaan meeshaasna waxa ugu jira dhibco muhiim ah oo uga imaan karo Rashford ayaa ka mid ah ninka kale oo kabtan la saaran karo farqina noqon kara iyo Mason Greenwood oo isna dhibco
keeni karaa kabtanna lagu aamini karo toddobaadkan maadaama 3 kulan uu ciyaari doono sida saaxiibadiisa oo kale. dhinaca kale Iheanacho oo ka hor imaanaya kooxaha Newcastle iyo Manchester United ayaa ka mid ah ragga kale ee dhibcaha looga tashan karo kabtanna la saaran karo toddobaadkan. Watkins oo ka hor imaanaya kooxaha Manchester United iyo Everton isbuuc ciyaareedkan ayaa asna ka mid ah kabtanada ugu macquulsan toddobaadkan. Dominic Calvert-Lewin oo ka hor imaanaya kooxaha West Ham United iyo Aston Villa ayaa asna ka mid ah ciyaaryahanada kabtanada la saaran karo maamulayaashan ay aad isku haleyn karaan toddobaadka soo socda. sidoo kale Mohamed Salah oo ka hor imaanaya kooxaha Southampton iyo Manchester United ayaa isna noqon kara kabtan farqi ah. dhinaca Aubameyang ayaa asna noqon kara kabtan farqi ah oo isagoo ka hor imaanaya West Brom iyo Chelsea. toddobaadkanna waxaa idin rajaynayaa guul. intaas ayaan kusoo gabagabeynaya saaxiibayaal, waxaad nagala socoteen Astaan Sports iyo YouTube channelkeena FBL Somali. waxaan idin xasuusinayaa inaad nagu soo biiri kartaan YouTube-ka, sidoo kale dhinacyada Facebook-ka, Twitter-ka iyo Instagram-ka oo aan si joogta ugu daawacno wararka la xiriira Fantasy Premier League oo ay ka mid yihiin xogta ciyaartooyda, suuqa kala iibsiga iyo dhammaan waxyaabaha la xiriira kooxaha ciyaaraya markaa iyada. aad ay mahadsantihiin haddii aad hore noogu soo biirtayna YouTube-ka videoga like saar oo share garee naguna soo biir. aad ay mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.